waxay noo soo gashay imika hormoodka kulliyadda businesska waa Nasra Saciid waa hormoodka kaliya ah ee haween ah ee jaamacadda Hargeysa maamulkeeda sare ku jira halka waxa fadhiya 9 qaybood oo ka baxaya post graduate-ka waxa peace and conflict-ga kuwa koobaad oo master ah project planning and management oo master ah public health ultrasound oo post graduate diploma ah good governance and leadership oo master ah curriculum and instruction oo master ah ardayda maanta qalin jabinaysa mudane madaxweyne waxa weeyaan 1290 arday waa tiradii ugu badnayd ee ka qalin jabisa jaamacadda laakiin waxay isugu jiraan laba jeer baa la kala qalin jabay ardaydii heerka koowaad iyo ardaydii heerka labaad oo isa soo gaadhay oo markii la isu keenay ayay intaasu noqotay percentage-ka ardayda qalin jabinaysa 140 arday waa post graduate inta kalena waa undergraduate percentage-ku waa la isa soo gaadhay waxay marayaan 54 iyo 46 habluuna 46 bay marayaan 54 bay marayaan inamaduna ay marayaan marka aad iyo aad ayaa la isugu soo dhawaaday kulliyadka qaar waxa haysta hablaha haysta hadii sayniskii inamadu ay baran jireen maanta waxa haysta marba haysta oo u xoog badan internship-ka ardayda medicine-koodhan waxay tagayaan hospitaalka weyn oo ay sanad ku qaadanayaan ardayda imika qalin jabisay halkan joogtaa waxa kale oo qalin iyagu inay la fadhiya 3 dhakhtar oo ka qalin jabiyay jaamacadda Harvard ay iska kaashadeen Hargeysa University iyo Jima University 3 dhakhtar waa takhasus naadira ama very rare ah waxaana fadhiyaan halkeena nimanka neuro psychiatry ayay barteen cid baratay ma jirto saddexdaana waxaan ka codsanayaa dawladdu inay shaqaalaysiiso oo hospitaalada waaweyn lagu qoro waayo lama hayo psychiatry takhasusa saddexaas soo baxay waxa laga yaabaa in bisha dhawaana inay 3 kale noo qaadaan waxaan rajaynayaa si macallimiintii loo tayiyo dugsiyada sare iyo dugsiyada hooseba in education-ka ka faa'iideysataan hadda laga bilaabana ardayda secondariyada kuwa bright garden waxaynu ku tababaraynaa jaamacadda gudaheeda basic science ku siinayna haddii ilaahay ka dhigo kharashkoodana hay'ad qolada keentay ayaa inaga bixinaysa 2 sano hore inta dambena jaamacadda la wareegaysa hambalyo waxaan idin rajaynayaa khayr fara badan mudane madaxweyne guul baan idin rajaynayaa dhammaantiin waxaasoo dhan waxaa loo samaynayaana dalka belfishankiina kor u qaada nin walba muraayada siyata yar ee kooban ee reerka iyo qabyaaladii waxa ku meeraysanaysa iska saar oo markaas ay dunidu u fikirayso dad la mid ah ayaa saaray dunidaba nooca ka dhigay oo waxa weeyaan assignment lagu qaatay Facebook dadka soo saariyo Google iyo dadka waxa sameeyo dhami waxaasoo dadka sameeyo dhami waxay sameeyay waa dad idinkayda la mid oo undergraduate sameeyay marka waxa loo baahan yahay maanta in gidaarada dumisaan oo Soomaaliland wax ka dhigtaan ayaa la idinka rabaa oo la idinka fadhiyaa ayaa la idin fadhiyaa oo tacabkii ilaa waalid ilaa macallin ilaa madaxweyne ilaa iyo halka jaamacadda meel bal loo rooriya waxa weeyaan birita dalka meesha ka qaadaan anigoo ku hadlaya magaca guddiga sare jaamacadda ama boorka jaamacadda waxaan marka hore hambalyo u dirayaa ardayda qalin jabinaysa oo aan leeyahay hambalyo waxaad halka ku soo gaadheen dadaalkiina adag ee aad ku mutaysateen inaad ku qalin jabisaan maanta shahaadada uu guddoomiye ku dhawaaqay jaamacadda Hargeysa saa gudoomiyuhu tilmaamay waxay higsanaysaa macnaha inay xiidho badan samayso wadamada shisheeye ka hesho scholarship-yo laakiin mustaqbalka sida qorshaha inoogu jirto waxa weeye in iyada hadda kadib loo soo doonto scholarship-ka oo iyadu bixiso maartay degree-ga 2-3 halka ardaydu nimiga ay dibadda u doontaan taasoo ku xiran kaliya dhaqaale iyo boarding system-kaasina waa qorshaha long term-ga strategic plan-ka jaamacadda loo dhigay ku jira waxaad soo saarteen jiilkii ummadan ka saari lahaa halka ay joogtay ee u gudbin lahaa halka ay higsanayso waxaanu ugu bushaaraynaynaa jaamacadda inaanu dhisi doono dunidu waxay u socotaa dhinaca technology-ga waxaanu dhisaynaa lab ardaydu ku barato telecommunication-ka iyo ICT oo dhan laabkaas ayaanu jaamacadda u dhisaynaa waxa kale oo aanu samayn doonaa ardada
saddexda arday ee ugu sarreeya laga bilaabo sanadkan fiilalka aanu ka shaqayno ama eeriyooyinka aanu ka shaqayno waxaanu u ballan qaadaynaa laga bilaabo sanadkan maamulka jaamacaddan aanu sheegaynaa inaanu shaqaalaysiin doono. waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa ugu horrayn oo farxadda la qaybsanaya dhallinyarada qalin jabisay macallimiintii ku soo tacabtay iyo maamulkii isku hawlay ee wakhtiga dheer geliyey ee maanta guushan ka taagana soo gaadhay. aad baa u mahadsan tihiin, waa idin hambaliyeynaynaa, farxaddiinnana waannu ku faraxsannahay. taa mid la mida waxaan iyagana runtii hambaliyas u dirayaa waalidiintii u soo dhabar adeegtay iyo cid kastoo ka kaalmaysay ardaydaas markay wax baranayeen oo sugaysay tacabkooda ayaan aad iyo aad iyagana u bogaadinaya. dardaaranka dhallinyarada qalin jabisa aan leeyahayn waxa weeye waxaa ka soo baxdeen caqabadii waxbarasho oo aa warwarayseen maalintaad bilowdeen, maantana waxaa ku warwarsantiin shaqadii aa geli lahaydeen. ha warwarina, iyana waa heli doontaan. dalkani wuxuu leeyahay mustaqbal fiican baa leenahay, ilaahay istaraatiijiyad fiican buu ina dhigay. taiwanka waan soo dhaweynaynaa, waxa inoo keenay waxa weeye buqcadda ilaahay ina dhigay ayaa weeye inuu ka faa'iidaysanaa weeye. waxaanu ka faa'iidaysanaa inaan midnimo aynu isku dul qaadanaa, mikrofoonka iska daynaa, salaadiinta u dirnaa magtayna guraan, siyaasadda ay ka baxaan ayaa weeye. asxaabta la nooleeyaa, institutions la dhisaa. adduunka waxa kala saara waa institution building, waa inaanu dhisnaa institutions inclusive ah oo loo wada dhan yahay oo laga wada muuqdo oo beelaha laga baxa. waalidkay ka soo saaray carruurta iskuulkana waxaan leenahay hambaliyo carruurtiina. maanta carruur badan baa jira oo saa uu sheegay xirsi aan chance lahayn. insha Allah waynu gaari doonaa, waxa aynu haysano nabadda aynu haysano ayaynu ku gaari doonaa, wax wanaagsan oo badan insha Allah ku gaari doonaa. nabadeen iyo midnimada in la shano waa insha Allah taala. waanu idinla faraxsannahay, waanu dhammaan aad iyo aad baan u hambaliyeynayaa waalidiintii ku soo tacabtay ardaydana maanta waxaan odhanayaa maanta idiin bilaabantay ardayda qalin jabisay. hambalyo. waalidiinta waxaan leeyahay carruurtiina waxbarashada ka bixiya. hadduu inanku aroosto ama inantu haroosato waxaad arkaysaa meesh lacagtii laga keenay balkaale sheeg, waxaa laga bixinayaa gabaati, waxaa laga bixinayaa yarad. islaantii 20 fijaan bay istaba raraysaa, baabuurta alalagta. haddana markaa waa inaynu waxa ka muhiimsan inaynu qofka aynu ugu dadaallo waxbarashadiisa, oo sidaa aynu arooska iyo guurka inanka iyo inantaba diyaarka u heeganka ugu dhay in aynu waxbarashadiisa gelino. 11 kun baa ka baxay secondary oo jaamacad doonaya. wasaaradda waxbarashadu iyadoo kaashanaysa jaamacadaha isla markaana aanu soo soconno shirkadaha iyo ganacsatada, waxaanu samaynay scholarship pool amba deeq waxbarasho meel la isugu keenay. jaamacadaha publica waxaanu kula heshiinay 12% ardayda inay free siiyaan, waxbarasho free siiyaan. kuwa private kaana waxaanu kula heshiinay 6% inaanu siino. waa inaad ku fikirto shahaadada maanta aad qaadatay waa shahaado khayr qabtee, waa inay noqoto ha u fahmin tigidh aad noloshaada oo qura wax kaga beddelayso, laakiin waa tigidh aad u goosatay adduunyada inaad wax kaga beddesho. waxbarashada baa ka muhiimsan. mahmaah baa jirta leedhaa af Soomaali markaynu ka dhigana leedhaa lacag u hel si aad wax u barato, laakiin waxa u baranin si aad lacag u hesho. learn to earn but not earn to learn. waxa laga wadaa waxbarashadu shaqadaaday dhisaysaa, waa lagu soo dhisay. maanta waxaad ku fikirtaa inaad Somaliland iyo adduunkaba wax ka beddesho, waxaanan hubaa inaad ka beddeli doontaan. waanan idin hambaliyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad. hambalyo baan idin leeyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u hambalyanayaa dhallinyarada maanta qalin jabinaysa. waxaana lagu ducaynayaa inay noloshooda iyo mustaqbalkoodu noqdo mid ifaaya oo khayr leh oo barwaaqo ah oo ay bashashku noqdaan.
waxaan hambalyaynayaa waalidkii ku tabcay macallimiintii ku tacabtay jaamacaddii iyo qof kastoo gacan ka geystay si ay dhallinyaradeennu wax u barato waxaynu u ducaynaynaa macallimiintii inoo bilowday 100 sano ka hor waxbarashada ee awbar khadla lagaga soo bilaabay alf waxmaalaana inoo dhigay iyo ilaa maanta kuwa waxna barayay ee halkaa ina soo gaarsiiyayna waa u ducaynaa wixii dhintay wixii noola abaar iyo mahadnaq baynu u haynaa ilaahayna waxaan ugu rajaynaa cimrigooda dheereeyo wixii nool caafimaadna siiyo taasi waa hambalyada ardayda macallimiinta waalidiinta iyo jaamacadda waana maalin weyn oo farxad leh oo kun iyo 300 ku dhowaad dhalinyaro ah oo cilmi ku gaashaabanay ku soo kordheen xuduudda shaqaalaha iyo xuduudda difaaca dalka iyo xuduudda bahda caafimaadka cudurrada la dagaalanta ay jaamacadda Hargeysa u soo diyaarisayna waa ilaahay mahadii mar labaad baan ku taageerayna waxa hubaala tacliinteenu halkaynu doonaynay iyo meel u dhow midna inaanay joogin ayaa xaqiiqo ah dhammaanteen waxa looga baahan yahay halkaynu saa u gaarsiinaa dalkaynu Soomaaliland dadka jooga ku nool waxa lagu tilmaamaa 4 milyan inaynu nahay tiradeedu haddaynu eegno da'da u baahan waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe waxaynu ku qiyaasaynaa inay 1 milyan yihiin ee iskuul laga doonaysa waayo haddaynu populationkeena dadkeena ka soo qaadno 4 milyan boqolkiiba 25 bay da'da lagu qiyaasaa dhexe da'daasi waa 1 milyan dugsiyada dhexe ilaa ka hoose ku jirta maanta waxa qura ku jira 290 waxa inaga dhiman 600,000 oo arday oo waqtigii ay waxbarayeen jooga oo 12 jir ilaa 20 ku jira oo aan haysanin fursadda inaynu u sameynaa taala ugu samayn kari mayno hana la caawiyo oo dalablaaya hana caawiyo oo European-kaas xogay sandaleelaana siiyay oo dalkaas aan u bari tagaynaa ku dhismi mayna dalkeenu ku dhismi mayna boqor hebel baa waxayna siiyado sadaqada carabta dal ku dhisi kari mayno hadraad waa bari hor sheegay meel isbaran lahayn boqorada carbeed dan baa hayna u dhigay waxaynu ku dhisi karnaa inagoo caqli keena dalka dadka ku nool waa 3 qaybood qaybi waa da shaqaysay oo daashay oo jiifta oo xilkeedii soo gudatado kuwa xilba saara in la xanaaneeyo oo la daryeelo u baahan yahay qaybina waa da soo koraysa oo yar oo aan gaarin waqtiga ay shaqada soo galayeen qolada maanta qaranka Jooseef baa soo galaysa imika wixii ka hooseeyo waxay doonayaan in mustaqbal loo dhiso caafimaad la siiyo wari wacan la siiyo biyo ay helaan waxbarashada ay helaan xaggaynu ka helaynaa haddaba dhaqaalaha inta u baahan haddaynu eegna ardayda gaadhay waqtiga iskuulka ee 100 milyanka 1 milyana haddaynu dhahnaa aynu u dhisna kalaasiya iskuulo ku filan oo aynu kalaaskiiba ka dhigno 40 waa cidhiidhi oo iskuulkii waliba yahay 4 kalaas oo kala sarreeya 1 2 3 ma aha stream 2 iskuul iska galaya waa iskuul hal wada iyo macallimiintooda iyo alaabtooda bal 40 marka ku dhufto waxay noqonayaan in ka badan 6 kun oo iskuul yaa la naga sugaya iskuuladeennu haynana waa 2 kun baa leeyahay halkaana 4 kun baa naga dhiman waxaad ku dhufataa ardayga xiisadii wuxuu galaa 7 saacadood 7 sabtidoo kale ka hargalaya markaa waa la isku celiyaa macallimiintu 4 kalaasada gala iyo macallin reserve iyo macallin kormeeraha macallinkii imsaan sinaa bishii macallinku wuxuu baahan yahay cunto wuxuu baahan yahay guriga kale si uu bixiyo wuxuu baahan yahay inuu carruurtiisa wax baro wuxuu baahan yahay inuu caafimaad helo idinku caqligeena ka qiyaasa dhaqaalaha u baahanaya macallinka intaa marka aad isku dhufato wasaaradda waxbarashada ardayda oo guri waxay u baahan tahay maaliyad ka badanta dalka lagu wado 3 laab haddii maaliyadeenu tahay 260 milyan waxaynu u baahanahay 900 milyan inaynu u keeno wasaaraddeena iyo carruurteena mustaqbalkooda inaynu helno xaggaynu ka helnaa waa imanaysa ma heli karnaa waa imanaysa anigu waxa leeyahay waynu heli karnaa waan hubaa inaynu heli karayno xaggaynu ka heli karaynaa dalkeenna hala yaabo waa hubaal waynu heli karaynaa waynu haysanaa barnaamij baan u mahadnaqayaa jaamacadda
iyo ardayda soo qalinjabisayna u hambalyeynayaa horumar baana inoo rajaynayaa dalkeennu horumaraan inoo rajaynayaa halkii maxamuud presidentka jaamacaddu uu yidhi innagaa tacliil inoo soo dooran doona taa inaynu gaadhaan ilaahay ka rajaynayaa xoogga loo baahan yahana waa dhalinyarada aad iyo aad baa mahadsantihiin mudane madaxweyne waxaan doonayaa inaynu ku maamuusan u yeedhno ardaydii honorka u noqotay undergraduate programmiska waxaan ugu yeedhi doonaa se u kala dhibca sarreeyeen ugu horreyn waxaan u yeedhayaa saciid jaamac maxamed xaashi wuxuu ka socdaa kuliyadda islaamiga waxaa kaloonu yeedhayaa leyle xuseen cawil cabdilaahi electric and telecommunication engineering waa inan waxaa kaloonu yeedhayaa cabdilaahi maxamed ciise cawad veterinary kuliyadda xanaanada xoolaha waxaa kaloonu yeedhayaa khadar cabdiraxmaan yuusuf waa civil engineeringka waxaa kaloon u yeeli lahaa isra ismaaciil axmed yuusuf waxaa laga sheegay diinku ii sheegay inay xanuunsanayso malaa ma joogtaan filaya isra way xanuunsanaysaa waxaan u yeedhayaa cabdiraxmaan axmed cabdilaahi oo ka baxay kuliyadda dhaqaalaha waxaan u yeedhayaa yuusuf cabdirasaaq axmed ow cabdi oo isna la kale kaalin bay wada galeen kuliyadda dhaqaalaha يوسف ها فرح أيان عبد الله حرسي أو كلية social work and humanities يوسف waxaan u yeedhayaa saynab yuusuf cabdi diiriye nursing 5 years bay ku qalin jabisay intaas cabdixakiim maxamuud samatar wuxuu ka baxay departmentka public administrationka kuliyadda business and public administration waxaan u yeedhayaa cabdixakiim maxamuud samatar oo ka baxay kuliyadda beeraha agriculture yaxye cali ducaale maxamuud oo ka saxay computer science-ka mukhtaar cabdi maxamed yuusuf kuliyadda education departmentka biology and chemistry aydaruus mawlid aadan yuusuf kuliyadda shaybaarka medical laboratory waxaa kaloo nu yeelayaa mustafe maxamed axmed cilmi kuliyadda shaybaarka medical laboratory waxaan u yeedhayaa sihaam cabdi muuse maxamed nutrition and food science sihaam waxaan u yeedhayaa mustafa ismaaciil maxamed cusmaan oo ka baxay kuliyadda information technology-ga oo honor u ahaa maxamed cabdilaahi cabdi maxamuud departmentka mathematics and statistics saleebaan sahal jaamac departmentka journalism asma xuseen nuur jaamac oo iyana honor u noqotay nursing 4 years xamse cumar maxamed guuleed departmentka architecture engineering xanaan cabdirasaaq yuusuf cabdilaahi kuliyadda looga محمد عبد الله عبد الرحمن محمد electrical engineering إسماعيل محمد حرسي ودخاترتي هو medical surgery medicine بحي كلية medicine
عبد اللطيف أحمد فارح ديريه Department ka Environmental Science. هنا موسى قاسم عمر waxay ka baxday qaybta midwiferyga ama umrisanimada. hodan Hussein Musa Madar kulliyadda maamulka iyo maaraynta departmentka managementka ayay ka baxday. sidoo kale halkan waxaan uga yeeri doonaa 3 dhakhtar oo bartay cilmiga dhimirka waxaan oo inaga caawisay kulliyadda jaamacadda Harvard. dhakhtarka koowaad ee bartay cilmiga dhimirka waa xasan cabdiraxmaan waxaa kaloo nu yeedhayaa mustafa muumin oo isna bartay cilmiga dhimirka oo inaga caawisay jaamacadda Harvard. waxaa kaloo nu yeedhayaa dr ibrahim caqli oo isna bartay cilmiga cilmiga dhimirka. dhammaantood waxaynu leenahay hambaliyo. xafladdii intaasay noogu gabagabowday.